Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada youtube-keena Kayf Bashiir. Waa anigu waa Kayf Bashiir. Asxaabta igu cusubtiin subscribe ii saara, like ii saara, asxaabtiin kala sii wadaaga. Waxaa idin leeyahay dhammaantiin Ramadaan mubaarak, Ramadaan kariim. Maanta meesha waxaa ku qasanayaa keeg, milki keegaa rabaa inaan sameeyo oo bacdal taraawiix la cunayo. Marka hadda iska sii diyaarinaa. Meesha waxaa kusoo shubtay 4 xabo oo ukun ah. Meesha waxaa kusoo rutay 4 xabo oo ukun ah iyo bakeeri sonkor ah. Intaana isku daboolaa si fiican u qasaa. Makiinada u daaraa marka intaan isku daro. Waa ka makiinada hadda marka si fiican iigu soo qastay waxaa ku darsanayaa bakeeri aanan buuxin oo saliid ah iyo sidoo kale bakeeri caano boora ku darsaday caanaha soo qasay. Waxaa kaloo ku darsanayaa bur. Burka 2 bakeeri ayaa ka isticmaalaa. Waa bakeeri sonkor ah, 2 bakeeri sonkor ah, 2 bakeeri bur ah iyo bakeeri caano boora ah iyo bakeeri haafkiisa xoogaa saliid oo buuxin. Waxaa kusoo darsada bakin waaye. Bakin 2 xabo 2 qaanda kusoo daray. Qaandadeeda yariis waaye marka 2 qaanda kusoo daray. Hadda wixii u dambeeya ku daray waxaa waa vanilla. Marka intaasaa u daaranaya marka. Si fiican ay igu qasaysaa. Si fiican markay igu qasto birta waxaa sii marsanayaa bur iyo saliid suusan iiga dhigin. Waa tan hadda waa kusoo shubtay. Marka keega gelinaysidna waxaa fiican hoos inaad u daartid soo kor u soo kaco. Marka hadda foornada iska geliyay qaybta hoose u daaray. Kor hoos markuu soo kaco aan qaybta kor u daaraya. Meeshan waxaa kusoo qasanaya whipping cream. Aniga midka waxaa soo gatay cabirka oo budada ah. Marka meeshaas ku shubtay. Waxaa kaloo ku darsanaya caano yar ku daray. Marka badinaysid caanaha sonkor yar ku soo qasaysaa bas. Intaas isku daynaysid si fiican isku soo qasmaysaa. Markay adkaato ayada dhan cadaan noqoto aad ka daminay whipping cream-ka. Oo jeedi mahano sida ay noqotay. Ka ujeedin diyaar u yahay. Hadda keegiyaa soo qaaday dhinaca kale u gadiyay. Kadib waxaa farkiita soo qabanaa dhinacyada dhan ku mudmudaya soo caanaha u dhax galo. Si fiican u galgalinay. Whipping cream markaa marinaysidna waxaa la rabaa inuu dulshahaaga qabow ahaado. Dulshahana caanaha u badinay. Caanaha waxaa la rabaa siga dhan milki keegaa la dhahaabo. Caanaha ujeedi maano sa ugu shubay. Wax yar kadib buu mujeedaa uu gursaday. Caanihi dhan uu nuuga haddana wax yar. Haddana sidoo kale caano kala ku shubay. Caanaha si fiican la rabaa haduu keega dhan wada caano inuu ahaado. Keegaagana whipping cream markaa marinaysid waa inuu cambaar meel yaala uu qabow ahaadaa. Haddii kale whipping cream-ka dhan uu ka halaabaya. Siga dhan uu ka dhaldhalaalaa. Hadda marka qaandada lagu marinayo ma haysan marka tana uu isticmaalo tartiib. Dhinacyada dhan saas u soo marinaya. Kadib waxaa soo qaatay meeshan waxaa ku soo bacdan waxaa iigu jiro waxaa waaye sonkor dhalaaliyay iyo waxaa sonkor iyo waxaa isku soo daray warango iyo caano. Waxaa isku qasay kadib dabka saaran markuu soo dhalaa sharaxaadaas koraaba ka dhigtabo. Waxaa soo qaatay istakiin sharaxaada ku waxayna sidaas igu soo baxa quruxda badan fridge-ka u diraya. Markii u dambeyso oo afurka wixii dhan aan diyaariyaa ma soo saara inta kale finjeer ku jira 3 saacadood oo finjeerka iskaga jira ani midkeyga. Meeshan waxaa ku haystay hilib ii saaran oo maanta waxaa rabaa bariis. Maanta chicken maahan suqaar yar rabaa inaan ka dhigo. Marka hilibkeyga inta igu sii bislaanayo. Hadda hilibka biyahaas markuu gursada ka dajinaya. Intan waxaa igu shiilmayso waxaa waaye bardho asi yaryar soo yar kuuskuusay. Waxaa rabaa hilibka inaa kor ugu daro marabi inuu hilibkii bardhada isku bislaado marka bardhada gooniya u soo shiishay. Waa jeedin waa soo yar kuuskuusay gooniya u soo shiishay. Hadda digsiga u soo laabtay soo ii gursaday. Markuu ii gursaday bardhadii aa soo shiilay diyaarkii ahayd. Ma jajabayso furfur hilibkaagii bardhadana furfur ay ku noqonayaan. Markaas dhex geliyay kadib meeshaan waxaa ku soo jarjartay basal iyo barbarooni diyaar u yahay.
oo ujeediimahana sidaas furfurkaasuu kuu noqonaya markaa baradhada gooni usoo shiilatid oo kor ugu dasatid. Intan waxaa ku sameysanayaa bariiskaygii basala meeshaan saliida kusoo shubtay basalaa ku darsaday basha marka igu soo shiilmatay bahaaraadkayga intaa haystaa ku darsanayaa zaaidna ma ugu badinayay bahaaraadkii dhan aan ku daray waa soo shiilay bariiska ma duubin marka intaas bariiska dhan aan soo shiilay markaa soo shiilay waxaa kusoo waa soo biyeystay waa kaa daboolka usoo dheereeyay meeshaan waxaa kusoo shiilay bur maanta awal burka caana macaana kor uu ku shubi jiray maanta waa ka yara bedelay sonkor iyo waxaa isku soo kariyey sonkor iyo biyo iyo liin dhanaan yar markaa arkay inay jijid noqotay gacanta ku tijaabinayay markii aragtay inay kusoo raraacayso sonkorta diyaar waaye kadib burkii aa meeshaan kusoo qaatay sonkortii iyo biyihii iyo liinta isku soo karkarta aan ku shubay saasuu diyaar iigu yahay intan waa kanaa bariiskaygii aa kusoo waxaystay diyaar ii ah waa kasoo dejiyey bariiska saanuu diyaar iigu yahay afurkeyna maanta afur yaroo iska fudud uu ahaa sidaanaa kusoo dhameeyey waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin insha allah fideogan fideoga xiga intaa ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan